magaca Joe Biden ayaa hadda ah mid ka haysta bogagga hore ee jaraa'idada caalamka. isagu waa ninka rajada u abuuri kara malaayiin qof oo magangelyo doon ah ama xitaa aan dhaho dadyow leh midabo kala duwan oo raba inay qaxooti ahaan ugu noolaadaan dalweynaha Mareykanka. muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa waxyaabo badan oo ka qarsoon oo ku aadan ninka ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalweynaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka waa mid hore loogu eedeeyay falkufsiga galma ah. maxaa ka jira inuu taageeray in la weeraro waddanka Ciraaq, sidoo kalena uu wiilkiisa ku daray ciidamadii Mareykanka si uu uga soo dagaalamo dhulkaasi. ceebtii caadada ugu xun ee uu leeyahay Joe Biden, sababta loogu tilmaamo beenaale inkirey awoowayaashiisa iyo sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka ayaan idinla wadaagi doonaa. inta aanan ka hadalka sheekadan gudagelin, waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like saarto si muuqaalka uu saaxiibo badan u gaaro, una sheer garay adigoo asxaabtaada qaaska ah ee ku xiran bartaada Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga. adiga hadda muuqaalka daawanaya, haddii aadan garanayn magaca Joe Biden, waxaa laga yaabaa inaad saacado yar ka dambayso caalamka ama aadan aqrin qaar ka mid ah jaraa'idada caalamka, ma aadan dhegaysan raadiyaha ama xitaa tiifiyada. si kale haddii loo dhaho, baraha bulshada wax badan kalama socotid. micno badan ma samaynayso inaad barato magaca Joe Biden, laakiin taasi waxay la micno tahay inaadan waxba kala socon doorashada waddanka Mareykanka. midka aan ka hadli doono waa madaxweynaha hadda ku guuleystay doorashada waddanka Mareykanka ee Joe Biden. isagu waa musharax ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, kaasi oo cunsurigii weynaa ee Trump uga guuleystay doorashada waddankaasi. waxa uu noqonayaa madaxweynaha 46aad ee dalweynahaasi. marka dib loogu laabto dhalashadiisii iyo halkii uu ku soo barbaaray, waa Joseph Robinette Biden Jr., kaasi oo waalidiintiisa u dhashay taariikhdu markii ay ku xusneyd 20 November sanadii 1942. isagoona ku dhashay isbitaalka St. Mary's oo ku yaalla magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania. xisaabta ku darso, gobolka uu ku dhashay Pennsylvania waa gobolka u suuro geliyay inuu ku guuleysto jagada madaxweyne ee waddanka Mareykanka. Joe Biden waxa uu ka soo jeedaa famil asal ahaan haysta diinta Kaathooliga. waxaa la dhashay hal gabar oo loo yaqaano Valeria iyo 2 wiil oo loo garan ogyahay Francis iyo James. si dabiici ah qoyskiisa waxay iska ahaayeen qoys ladan, balse sida taariikhdu ku xusan waxaa hareeyay dhibaatooyin dhaqaale, inkastoo la sheego inaysan taasi saameyn buuxda ku yeelan nolosha qoyskooda. dhanka waxbarashadiisa waxa uu ka baxay jaamacadda Syracuse University College of Law, isagoo ka bartay culuumta qawaaniinta ama shuruucda, qof walba sida uu yaqaano, isagoo oo sida taariikhda ku xusan galay kaalinta 17aad ee fasalkiisa, kaasi oo ka koobnaa tiro gaaraysa 85 arday. tani waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha haatan ee Mareykanka uusan ku wanaagsanayn dhanka waxbarashada xilligii uu ardayga ahaa. marka laga hadlo waddada uu u soo maray heerkan, waa mid adag, waxaana loo doortay xubin ka tirsan golaha deegaanka ee Newcastle County sanadii 1970. wuxuuna noqday senatarka 6aad ee ugu da'da yaraa taariikhda Mareykanka markii loo doortay aqalka sanadka Mareykanka oo laga soo doortay Delaware 1972. Biden wuxuu muddo dheer xubin ka ahaa golaha xiriirka dibadda ee sanadka. ugu dambeyntiina wuxuu ka noqday gudoomiye. si dhow waxaa lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa kuwii taageeray qaraarkii ogolaanshiyaha dagaalkii Ciraaq ee sanadii 2002. sidoo kale dadka qaar ma oga in wiilka Biden ee Joe Biden uu horey u soo noqday xeer ilaaliye guud, sidoo kalena uu ka mid ahaa askartii ka qayb gashay dagaalkii Ciraaq, kaasi oo mar dambe u dhintay kansar kaga dhacay maskaxda. Biden kuma cusbo ololaha doorashada. wuxuu halgankiisa siyaasadeed ka soo bilaabay magaalada Washington xilligaasi uu ku biiray aqalka sanadka sanadku markii uu ahaa 1973 oo hadda laga jooga 47 sano, halka ololaha doorashada madaxtinimada uu bilaabay sanadii 1987 oo haatan laga joogo ilaa 33 sano. sida ay sheegayaan taageerayaashiisa, wuxuu muddo 10 sano ah ka soo shaqaynayay siyaasadda arrimaha dibadda. waana nin aftahana oo soo jiidan kara dadka caadiga ah. waxaa lagu tilmaamaa nin geesi ah oo u adkaystay dhibaatooyin soo maray noloshiisa. wuxuuna muddo 50 sano ku dhow u ordayay sidii uu madaxweyne ugu noqon lahaa waddanka Mareykanka. Biden
wuxuu caan ku yahay inuu qanciyo taageerayaashiisa ku buuqa iyo kuwa fuudada ku sameeya xilliga ololaha doorashada uu ku jiray waxaana suurtagal u ahayd in hol oraah oo keliya uu ku dejiyo taasi oo xitaa mucaaradkiisa u rogi jirtay taageerayaashiisa qaaska ah ee isaga difoosaha u noqda wakhtiyada adag Biden wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladdii uu hogaaminayay Barack Obama 8 sano ee uu hoggaanka Mareykanka hayay waxaana uu nasiib u yeeshay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee soo mara waddanka Mareykanka kaasi oo ahaa Barack Obama madaxweynaha cusub ee Mareykanka waxaa lagu tilmaamaa nin leh dabeecad been iyo inuu inkiro asalka qoyskiisa si uu u soo jiito taageerayaal badan waxaana uu jeediyay hadallo muran badan dhaliyay oo la yaab ku noqday xitaa xubnaha qoyskiisa ama awoowayaashiisa kadib markii uu kaamirada hortooda ku inkiray shaqadii ay ka shaqayn jireen iyo wixii ay ahaayeen markii uu ka qayb galay isku soo baxa siyaasadeed Biden ayaa ku andacooday hadallada soo socda isagoo leh awoowayaashii waxa ay ka shaqayn jireen goob dhuxusha laga qaado oo ku taalla waqooyiga bari ee Pennsylvania wuxuuna si carala u sheegay inaysan helin fursaddii ay mudnaayeen in la siiyo balse hadalkaasi wuxuu ahaa been abuur xaqiiqada waxay tahay in awoowayaashiisa aysan ahayn dad dhuxusha qodi jiray waxa uuna hadalkaasi ka soo xaday siyaasiyiin uu ka mid yahay Neil Kinnock oo dad ka mid ah qaraabadiisa ay ahaayeen dad dhuxusha ka shaqaysta fadeexadda ugu weyn ee u horseedi rabtay xitaa inuu isaga baxo doorashada waxay ahayd in loo soo jeediyey eedeymo ku saabsan habdhaqankiisa iyo inuu isku dayay inuu kufsado gabar xafiiskiisa ka shaqaysa 8 haween ah ayaa sanadkii la soo dhaafay Biden ku eedeeyay inuu kula kacay fal anshax xumo ah sida inuu laabta geliyay ama uu dhunkaday warbaahinta Mareykanka ayaa baahisay in Biden uu salaamo haweenka isagoo aad ugu dhow marmarka qaarna uu san ka saarto timahooda Biden oo eedeymahaasi ka jawaabaya waxa uu ballan qaaday inuu noqonayo qof feejigan marka uu dadka la kulmi doono wakhtigaasi wixii ka dambeeyana waxa uu sameeyay feejignaan bishii March haweeney lagu magacaabo Tara Reid waxay ku eedeysay Biden inuu ku ciriiriyay gidaarka xafiiska xilli uu doonayay inuu sameeyo weerar galma ah waqti hadda laga joogo 30 sano ka hor waxay haweeneydaasi ahayd ku-xigeenka xafiiska xilligaasi laakiin ugu dambeyn Joe Biden waxa uu beeniyay eedeymaha loo jeediyay iyo in sidoo kale arrintaasi ay tahay wax la iska yiri oo aan dhici karin daawade ka hadalka waxyaabaha ku saabsan Joe Biden halkan kuma soo koobi karno balse su'aasha milyanka dollarku kacayso waxa ay tahay oo aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay sidee ayaad u aragtaa isbeddelka madaxtinimo ee ka muuqanaya dalweynaha Mareykanka bas laga yaabaa in mid taasi la mid ah ka dhacdo doorashada soo socota ee waddankeena waxaan ku xasuusinaynaa haddii aadan muuqaalka laag saarin inay muhiim inoo tahay inaad laag saarto una sheer garayso asxaabtaada magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafiinho aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan